بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. أولا وعن كان سلام قيمة بدن وسوق الدنيا رئيس وزراء جمهورية فدرالية الصومالية xubnaha golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka labadiisa aqal gudoomiyayaashii hore oo aan xilka kala wareegay gudoomiye Cumar Finish gudoomiye Mungaab oo aan 15 kala wareegay iyo Xuseen Cali Axmed oo asuguna fadhiyo dhagaxtuur oo aan hadda ma aragto asuguna gudoomiye gobolka Soomaaliya taliyaasha ciidamada ee kala duwan heer gobol iyo heer qaran dhammaan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir dhaqanka siyaasiyiinta ee halkan fadhiyo haweenweynaha khaasatan reer Waaberi waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intii aan ka tagan intaasay ku hoos jiraan عاول يقوى معي هدان حوغات بالغافو السلام كدب وحي عن شيقي رباين توضى بدان وحال لقوسو قديي هل كان لكن دقيقة دا او كوبنا يدرتوت ايا لسو قابيي مدن رئيس الوزاري waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala caawa inuu halkan isugu kayna keeno walaalkay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada ee cusub waxay yiraahdeen waa madaalatu ay yiraahdeen waa madaalootin la haynayeen madaalatu waxaan leeyahay Mr. Amir caawa ku soo dhawow xilkan cusub mas'uuliyadan culus وأمانه ورنتي مسؤوليات أن سهلنين 4 مليون أو صومالية أو شعب صومالية يدق المقالة المقدسة وخدمين تودا ومسؤوليات عصب حالنا مركر الله كل قاضو وكفر أحسن يا ورنتي إنان لبجر سدي حوغانا إيرعدي inkastoo hadday saaxiibkay yabo markuu hadlaayay uu ka dhigay inaan anigu baxay yabo anigu ma bixina waxaan leeyahay gadaal geed fadhiyaan ahay anigu laakiin caawa rarkii waa iga degee raggu kale inay haraanna waa rabaa ra-iisul wasaarahan u sheegaa taasna saxaabta inay sii joogaan aan jecla mudane ra-iisul wasaare intii aan joogna waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan halku dhiga madaale ee sanadkan wuxuu ahay 2 sano iyo 20 wado 2 sano iyo 20 wado waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan 20 wado miyaa la dhisay inay tiraadaan suuragal ah wadooyinkaasi wadadii ugu horeysay oo xarig jartay waxay ahayd Taleex waxaa ku xigtay Via Liberia waxaa ku xigtay wadadii Cali Mahdi loogu magac daray Allah u naxariisto ee Cabdilcasiis waxaa ku xigtay wadadii Ibka Xalane waxaa ku xigtay wadadii maaragtay Tawfiiq waxaa ku xigtay wadadii Oodweyne waxaa ku xigtay wadadii Ciise Cabdi waxaa ku xigtay wadada maaragtay Liido oo soo galaysay oo xariga ka jartay wadada ka baxaysa dabka ee aadaysa dekada Uganda ma tiri karaadaan tiri maago inta socota hadda ee shaqadooda socoto qabyada ah waa wadada Kaaraan ka baxdo ceel cadda aado oo xaawa casir marayso oo intaasi la sameeyay inkastoo Amir Maalood kula kaftamoon Amirow Kaaraan damagaar u lahaa maxay la waa markii labaad oo dhinacaas intaan aad xilki laga qaaday iska ilaaliyaa bariga hore 17 waxay ku aadaan oo dictor Kadare wadadii aan u baxsho iskooska mariinta ka baxda kaysanay aadaysay ayadoo dhaxay maraysa la ila kacay
haddana waxaa aragtan markay cadcadda ku dhowda hawa casir maraysaa layla kacaye jamhuuriyaha kuu bandhigay arrintaada dhafayna oo lagu imaan doonaa marka waddada jasiira socoto xoosh ilaa ex controla dhammaaday dabakaanya madow ilaa iyo waddada afgooya socoto waxaa socoto maaragtay waddadan buundooyinka aaday ka hoos baxayso aansalooti reer waa beri reer xamar jabgaar u taabanayso intaasoo waddo way socdaan waxyaabihii ilaahay nagu guuleeyey ayay ka mid yihiin inta qabyada ana insha allah waxaan rajaynayaa walaalka inuu dhammaystiri doono haddii ilaa yidhaahdo sidaasi la mid ah waxaan soo largelinoon ifinay magaaladii ilaa 2,600 oo soolar ayaa la gelshay magaalada markaan nimid ilaa hadda 600 waxay wataan macal baalayaashoodii 2,000na waxa waaye baalayaashu way taagnaayeen laakiin waa la ifiyey marka 2,600 ayaan maraynaa iyaduna qabyo waa socotaa waxay ahayd ifinta magaalada iyo cagaarinta way isku dhinac socdaan haddii ilaa yidhaahdo sidaasi la mid ah waxaan noo suuro galay mootooyinkii waad ogeedeen ra-iisul wasaare aad soo saarteen go-aankaasi A iyo B inaan ka dhignay oo meelaha qaarkood A iyo B ba noogala yaqaano taasna waxay yaraysay maaragtay qaraxyadii iyo burcaddii ku adeega jirtay ayay yaraysay jaamkiina waa yaraysay inkastoo iskooda isaga badan yihiin laakiin A iyo Bdii wax badan ayay hay-adaha amniga uga faa'iidaysteen iidana guul aan gaarna ayay aheeday inta aan shaqada ku jirnay sidaasi la mid ah waxaan wadnay la dagaalanka maandooriyaha oo anugu aan aaminsanahay idinkuna aad wada aaminsan tihiin ubadkayna waxaa dib u dhigay dalkaynana dib u dhigay xasiloonnidana noo diiday inay kow ka taha maandooriyahaasi shaaraan u gashannay waanan u istaagnay annaga iyo hay-adaha amnigoo wada shaqaynayno waana wax badan ayaanan ka qabannay haddana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo inay halkoodii ka sii socdaan uusan noqon go-aan dowladeed waa 4 maalmood inuusan noqonine haddii isbeddelka yimaado iiduna inaysan meesha ka bixin sidaasi la mid ah waxaan ku garab wadnay la dagaalanka fisqiga iyo munkarka oo magaalada meelo badan ka dhacaayay asuguna waad ogeedeenoo heer aan ushayna u qaadanna ayaan gaarnay annagoo doonayno inaan gabdhahayna iyo ubadkaynaba aan ka badbaadinno xumaantaas inaan ka badbaadinno iidana waa ku guulaysannay sidaasi la mid ah waxay gobolka banaadir qayb lama iloobaana ka qaatay la dagaalankii khawaarijta oo aan xataa aan tagna barihii dagaalka aan tagnay gabdhaha gobolka banaadir oy maaragtay jawaar hogaaminayso ay tageen goobihii dagaalka ay ka socday annagu aan tagnay daftirkayga anigu aan taga goobihii dagaalka ka socday maalin kasta ama bil kastana raashinka diyaarka ah oo maaragtay aan u diyaarinno oo ayaduna maaragtay hooyooyinka maaragtay u hiili hooyo qaranka u hiili qaybta ugu muhiimsan gobolka banaadir oo ka qaato taas iyaduna waxa waaye waa lama ilaabaan insha allah sidaasi la mid ah taakulaynta danyarta oo dadka caafimaad darrada haayo oo aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin in badan oo ka mida dibaddaan u dirnay in badan oo ka mida waa soo daaweyn waa soo caafimaad halkaanay mideen qaarna hadday weli ku maqan yihiin qaarna gudaha magaalada isbitaalladoodan ku daaweynay taasiidana waxay ahaday waajibaadka aan gudanaynay iyo canshuuraha dadka laga qaadon u celinaynay ayay ka mid ahayd mudan ra-iisul wasaare mudanayaal iyo marwooyin waxaan soo kordhinnay sidii laga dhawaajiyo degmooyin cusub oo aan ogsoonahay saaxiibbaday mungaad iyo cumar finish iyo xilligoodii inay deegaanno ayagu aqoonsadeen aniguna aan degmooyinku u dhammaystirnay wasiiradayda arrimaha gudaha oo maaragtay cali xoosh iyo axmed macallin fiqi oo ayaguna xilligaas aad igala shaqeeyey ayaguna hortaadaan uga mahad celinayaa iyo intii gacan ka geysataba mudan ra-iisul wasaare saad arkayseen 23 miisaaniyadda 47 milyan ay aheeday 24 67 milyan ay aheeday
2025 oo hadda aan rabo saaxiibkay inaan ku wareejiyana waxay ahayd 87 milyan ayaan soo qorshaynay iyadaasna waa ku guulaysanay miisaaniyadda aan degsanay yoolkii waa gaarnay meelo yaryar oo noo dhinaad iidana waxaan ku dadaalaynaa inaan dhuudhuujinno sidaas la mid ah saad aragteenba waxaan u guurinay dawladda hoose system ayaan ka dhignay dhulkii saad aragteen sidaas la mid ah BFM ayaan diyaarinay oo aan ugu talagalnay asigana 2025 inuu shaqo galo BFM-ka wali aan u dirnay isteedada markay soo sameeyeen ay soo minguuriyeen koobi baastay keeneen kadibna sharciyada dawladda hoose aan waafajinay BFM-ka asuguna waa hirgala haddii ilaa yiraahdo ninka horuuga soo shaqeeyana maanta xilka alla wareegi doona haddii ilaa yiraahdo asigaasna waxaan rabnaa inuu u gudubno dhinacaas tan oo dhulkana waa aragteen dad dhigisti iyo maaragtay wixii oo dhan system aan ka wada dhignay saaxiibka Umar Finish shirkad tabaariq la yiraahdo marka heshiis la galay ayadaas ayaa lagu maareeyaa maaliyadda sidaas waxaan noo suura gashay inaan la dagaalano corruptionka iyo musuqa iyo xaaraanta waana la dagaalano wax badan oo kamid ah inta dhimanna insha Allah waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha cusub inuu dhameystiri doono insha Allah ilaalinta amaanadu waa markasta waa shay muhiim ah cid kasta oo musliman ah amaanada gudashadeeda waa shay maaragtay waajib oo saaran intaa kadib waxaan rabaa halku dhigeedeedii waxaa ka mid ahaa oo aan wax ku salay jiray dhiso aan kula dhiso jid waa layga dhaxlaa wax jeeb lagu qaada layga dhaxli maayo karfan jeeb male saaxib hortaada hagaaji iyo wax badan oo ka mid ah iidaasna waa lagu guulaystay dalkaaga ku dhisa $1 waxaa lagu qabtay intaan haddaan idiin sheegayno meelaha aan dhisnay ama waaxyaha ama degmooyinka shaqada ku socotana iyo kulli isku tashiyan ku wada dhisnay wax gacan nagala siiya ma jiraan yoolkayga wuxuu ahaa dib u dhis waddanka waddooyinka dib u dhis dib u hagaajinta iyo howlgelinta bulaacadaha nalaynta magaalada iyo waddooyinka nadaafadda waddooyinka dhigidda dhagaxyada interlooga ah intaas waxaa ka hirgelay dib u dhiska waddooyinka waa hirgalay wax badan oo ka mid ah dib u hagaajintii iyo howlgelintii bulaacadaha mar dhow waxaan heshiis la galnay waxaan dhammaynay jidkii bulaacadii ka imaanaysa buulaxuubey iyo danwadaagta iyo zooba jidka xaggaas ilaa iyo waxaan degnay laboorka sidaas la mid iskool buuluusiya bulaacadii biyo fadhiisan jireen iyadana waa maaraynay haddana mashruucii nagaad ayaa asuguna hadda noo dhammaaday 15 kiiloomitir oo waddooyin ah ayaa hadda haddii la yiraahdo sanadka markuu dhammaado bilowgiisa sanadka kale ayaa la dhagax dhigayaa xayeysiinteedina soo dhammaatay oo waddadan via Roma iyo waddada maxayada la dhihi jiray nasiib buundo iyo waddooyin badan oo sidaas ah ayaa la dhisi doonaa haddii la yiraahdo biyo mareenadina sidaas oo kale loo bilaabaa shaqadoodii iyaduna waa socotaa waxaan uga mahad celinayaa unitka nagala shaqeeyay iyo mashruuca nagaad iyo wasaaradda dawlaha guud oo Dr. Cumar wasiirka yahay oo bees u yahay wasaaraddaasna mashruuca biyo mareenada ayayna la wadaa iyadana insha Allah nalayntiina waa ku guulaysanay nadaafadina dagaalkeedan ku jirnaa marka waa mahadsantihiin aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa wixii dhimanna haddii ilaahay yiraahdo waxaa sidaas oo kale noo suura galay casriyeyntii xafiisyada dawladda hoose gobolka Banaadir inta badan waa casriyeynay daadejintii adeegyada bulshada iyadana waa noo suura gashay soo kordhinta xilalka gudoomiyaasha degmooyinka baayaha gaarka qabo dadka baayaha gaarka qabo waxaan ku soo kordhinaa iyagana konsalka degmooyinkan ka mid dhignay degmo kasta waxay leedahay gudoomiyaha baayaha gaarka ay leedahay marka iyadana waxaan soo kordhinay ka mid tahay maadaama ay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed iyadana waa ku guulaysanay alxamdulillah xiriirka Muqdisho iyo magaalooyinka kale iyaduna halkaan aad ka daawateen marka khudbadii waxa waaye aad ay u dheer tahay waa soo koobay ayaana sii badinine mudan ra'iisul wasaare adiga iyo marti sharafka ka soo qayb gashay waan idin mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hal mar jeclaa lahaa intaanan xilka wada wareejin bal horta gudoomiyaashii hore ee gobolka inay halkan soo istaagaan si aan laftirkayga qalbiga xogaa ugu qaboojisto bahasha inay tahay kala guud
مركا عمر فينش مستر منقاب دقحتور حسين علي أحمد منقاب ومغيم يا ما شاء الله ما شاء الله ايش المغنى